السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الوايد والسلامين ميل كستو الدنيا دافيه دك جوجتان waxaan idin rajeynayaa amni iyo amaano runtii waxa jira baaritaano badan oo lagu sameeyay taariikhda dhalashada iyo dabeecadda bani aadamka xiriir ka dhaxeeya runtii siyaabo fara badan ayaa lagu baaray bani aadamka dabeecadihiisa iyadoo xagga dhiigga laga ogaan karo qof walba dhiiggiisa nooca uu yahay uu dabcigiisa la wadaajin karo iyo iyadoo qofka waxa maskaxdiisa ku jira baaritaan lagu sameyn karo intii la weydiiyo isla markaana dabcigiisa la heli karo sidoo kale baaritaano la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday qofka taariikhdiisa dhalashada bisha uu dhashay in lagu ogaan karo dabcigiisa balse waa inay ahaataa bisha aad dhalatay iyo taariikhda aad dhalatay mid saxan fadlan hadduu barnaamijkan ku qanciyay like saar mahadsanid bisha January oo ah bisha ugu horeysa sanadka ama bisha koowaad ayaa waxa lagu sheegaa dadka dhashay bishaas inay yihiin dad hal abuur leh oo aqli badan waana dad hadalkooda ka dhabeeya waxay bartaana aan si sahal ah ku ilaawin si gaar ah waa dad xifdigoodu aad u wanaagsan yahay markay fakarayaana si qoto dheer leh ayay u fakaraan waa dad aqoontooda iyo waayarnimadooda ay aad u horeyso waa dad takhasuskooda aanay hal mowduuc ku ekeen waa dad reer social oo ku wanaagsan shaqada waana dad modern ah oo casriga xilliga jira la socda bisha February oo ah bisha labaad dadka dhashay waa dad qalbi furan oo daacad ah waa dad si fudud ku baran kara luqadaha qalaad ee ajnabiga ah sidoo kale waa dad hibo u leh balaaqada iyo wax soo jeedinta meelaha ay tagaana waa dad aad uga dhex muuqda waa dad kaftanka iyo furfurnaanta aad ugu dheereeya dhanka waxbarashadana waa dad si gaar ah hamiyad u siiya waxbarashadana meel dhexe ugama tagaan waxayna jecel yihiin doodaha aqoon isweydaarsiga ah waxayna awood u leeyihiin inay dadka si fudud ku qanciyaan bisha Mars dadka dhashay bisha Mars waa dad muwadiciin ah waana dad masaakiin ah haddii khaladaad lagu sameeyo xataa ma yaqaanaan argoosiga waa dad cafiska ku wanaagsan waana dad aad uga fakara inay problemkooda xaliyaan waana dad u dhuudhuuban ilaalinta iyo koritaanka ubadkooda waana dad dareemi kara caqabadaha haysta dadka kale iyagoo aanan loo sheegin waa dad si fudud asxaab ku samaysan kara bisha April dadka dhashay waa bisha afaraad dadka dhashay waa dad aad u firfircoon oo energy badan leh mana aha dad meel istaaga meesha ay yimaadaanna dhaqdhaqaaq ayay ka sameeyaan oo waxa ay jecel yihiin dadka ay u yimaadeen inay ka dhex muuqdaan waana dad markay hadlayaan aad u qiiro galiya dadka kale oo hadalkoodu soo jiidasho ku abuuro ama dareen uu ku abuuro waa dad aad u jecel dalxiiska waana dad deeqsi ah xagga caawinta balse dadkan kuma fiina lacag aruurinta oo waa dad wixii soo galaba marka baabiya oo xagga lacag aruurinta kuma fiina bisha May bishan dadka dhashay waa dad lagu kalsoonaan karo xiriirkooda jecelna aad ayay u adag tahay inay baabiyaan ama ay qof kale ka raacaan khiyaamadana maba yaqaanaan oo qofka ay jecel yihiin lagama yaabo in ay khiyaameeyaan ama ay ka raacaan dad kale ama qof kale waa dad aad u qiimeeya dadka kale dareenkooda waana dad isku filan oo isku kalsoon waana dad shaqada iyo horumarka aad u jecel kibir iyo isla weynina aad u neceb waa dad asxaabtooda markay dhex joogaan aad loo qadariyo waa dad haddii la soo weeraro si logic ah oo aqli badan kaga guuleysta dadkii soo weeraray fadlan barnaamijkan hadduu qanciyay like saar lana soco qaybta labaad oo ah 6 bilood oo inoo harsan sida